toddobada calaamad ama muuqaalkan ku sheegay haddii aad isku aragtid sida ugu dhaqsiyaha badan xarunta indhaha kugu dhow tag si indhahaaga loo baaro oo khatar kugu soo socotaan looga hortago. mar kale oo aniga aad sharaxyaha ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Calaamada koowaad waxay tahay haddii aad isku aragtid oo inaad xarunta indhaha kugu dhow inaad u degdegtid inay tahay shuuac indhaha oo si kama u aragtid adoo meel fadhiyo oo kale haddii indhahaaga shuuac aad dareentid wixii un arag shuuac kaa noqonayo si kama ah waa calaamada koowaad oo muhiim tahay inaad baaritaan indhaha u degdegtid. Calaamada labaad waxay tahay indhaha inay hal mar casaan ku noqdaan si gaduuda weliba si kama ah ulama jeedo qof isku og indhihiisa inuu allergy mise xasaasiyad ku ogaa mise indho qaleel taas kama hadlaayo. adigoo meel iska fadhiyo ama asxaabtaada la sheekeysana hal mar indhihii ku gaduuteen ama hal mar indhahaaga casaan noqdeen si kama ah waa calaamada labaad oo la rabo inaad si degdeg ah baaritaan indhaha isaga samaysid oo aadan dib u dhiganin. Calaamad saddexaad waxay tahay adigoo iska fadhiya meel ama meel cafeteria iska jooga ama asxaabtaa isaga dhex jira in wax walba laba kula noqdaan. Calaamadan waa calaamad khatara oo baaritaan indhaha si degdegan u aadid oo halka afrisnakiisa baaritaan indhaha u degtid waa lama huraana ama markaa laga yaabo indhaha oo kale inay weersho ama qalooc soo galo kama hadlaa inaa hore isugu ogeed indhahaaga inaad qalooc ku ogeed laakiin si degdeg haddii aad ku aragtid si kama adoon filaynin haddii aad isku aragtid waa calaamad loo baahan yahay inaad baaritaan indhaha ku degdegtid. Calaamada afraad waxay tahay madax xanuun ama indho xanuun si kama ah ama hal jeer indhaha isku aragtid kama hadlaayo sidoo kale madax xanuun hore qabi jirto oo kale ama isku ogtahay indho xanuun oo kale kama hadlaayo. midaan haddii aad isku aragtid madax xanuun hal jeer ah xoogaa yarna siima yar sameey haddii weli ay kaa bixi weyso sii dadsanayso laftirkeeda waxay calaamad u tahay in xaalad khatar ah ay kusoo waajahayso oo loo baahan yahay in intay kugu sii badan lahayd baaritaan indhaha oo si degdeg ah u samaysid. Calaamada shanaad waxay tahay iftiinkiina hal mar iftiinka aad dhibsatid iftiinka ma hadlaayo oo aad u dhib badan balse iftiin caadi oo dadka isaga dhex jiraan oo kale adiga laakiin ay kugu badan tahay oo kale si kama ah ama si mataqaanaa oo aadan horay aadan u filaynin oo hadana horay aad isku aragtid inaad baaritaan indhaha u degtid waa lama huraan. Calaamada lixaad waxay tahay qashin ishin oo kaa galna kala aad dareentid laga yaabo inuu qashinka saxda yahay oo baaritaan indhaha aad tagtid ama in aad dareemayso indhaha qashin kaaga jiro oo qorqoryo kaaga taagan yihiin oo kale badanaa midaan calaamad aad u daran maaha laakiin haddii aragtid inay kaa bixin kugu soo laabanayso ayadan waxaa lama huraan ah in baaritaan indhaha u degdegtid. Calaamad toddobaad oo ah calaamada ugu dambeysa waxay tahay in araggaaga tixsi oo duuduulaya aragtid si kama hore iskuguma arki jirin hal mar xarag tixsin oo indhahaaga duuduulaya horteeda weliba uu sii badanayo waa calaamad laftirkeeda ku tusi karta indhahaaga in xaalad ay soo waajahayso loona baahan yahay baaritaan indhaha ku degdegtid. toddobada calaamad aan sheegay waxay intooda ka midaysan yihiin in wax si kama ah oo aadan hore u filaynin in aad isku aragtid oo loo baahan yahay in aad ka salgaartid wax dhibaatada ay ka imaanayso meesha ay dhibaatada ka imaanayso in kale inaad ogaatid. adiga toddobadaas calaamad aan hore usoo sheegay mid ka mid ah misku aragtay dib miyaa u dhigatay mise isla markiiba baaritaan indhaha u degtid qaybta community nogula wadaag. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabay haddii muuqaalka faa'iidaysta like noo saar meel walba adduunka joogteen waxaa dirjaa caafimaad iyo indho fayow.